عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام أصحابتا ميل كستا جوجتان. maanta insha allahu tacaala casharkeenu wuxuu ku saabsan yahay partitionka loogu xidho log ama waxa loo yaqaano bootlocker si uu kugu xafido dhaatadaada. markaa asxaabta subscribe data channelka ku cusub tahay like na saar, asxaabta sidina share garee, wixii comment-yana xagga hoose nagu soo gudbi insha allahu tacaala. markaa waynu bilaabin doonaa casharkeena sinu hadhiiska ugu xidhno ama partition kamid ah hadhiiska loo yaqaano dhiidada gaar ahaan aad xogta dhigato si aan qof imka dad wada leedihiin oo kale ama aad meel ka tagto kale inaan lagaa dhex gelin oo password la weydiiyo. tayna ku xidhnaa marka hore agtayna waxaan soo kicinaa explorerka soo kicinaa explore kan soo kicino this PC bentigiina partition maana u leeyahay partition sida loo yaqaano oo Windows kugu jira yaal Windows 10 kugu jiro Windows 7 kugu jiro Windows 8.2 kugu jiro ana Windows kugu jira yaal ka marka kala kuma xidhi karo kuma xidhmayo. marka intiidinayna ku xidhno waa partition loo yaqaano dhiida weeyaan. marka saynu u xidhno right click baynu leenahay waxaan turn on bootlocker turn on baynu leenahay bootlocker uu soo kacaya iska sugayna oo soo kacaya waa ka sidaan soo kacay. markaas aynu ugu xidhno qasin tigtaana use password aynu leenahay ita password ku xidhna use marka password ku xidhna marka password aad ilaa weyn baa lagu xidhaa asxaabta. ita password ku xidhna password geliyana waxaan markaan geliyo next baan leeyahay next ayaan leeyahay. marka asxaabta haddaad ilowdo passwordkan hadda gelisay wuxuu ku siinayaa password loo yaqaano recovery oo haddaad ilowdo aad ka furan karto. marka recoveryga meel baa lagu save kartaa, waxaa lagu save kartaa partition aad Windows ku yaalo ayaa lagu save kartaa si haddaad ilowdo isaga kaga furay uu ku jibinay. marka afartan option wuxuu leeyahay save to your Microsoft account box save kartaa, save USB flash ku qaadanaysaa, save to file ahaan baa save kartaa soo biritan kartaa dabcan waxaan inuu save to file save ahaan waxaan ugu save kartaa file ahaan ugu save karay double click siinayna waa halkan xaqad dhigaysaa buu leeyahay. waxaan leenahay dhiida waliba wuxuu jecel yahay in lagu sii dhex rido folder inta la sameeyo new la yiraahdo ayaa folder iyo magacaada loo bixiyo loo yaqaan recovery. recovery soo bixino wala qaatulay magac muhiim baa new baad ka lahaado qaabay ku safareen. you want to save your recovery this PC وانا فكرت في عم كلنا هاك سيف هذا فكرت انسان هاك سيف كريس يس في بس انا وسيف كريس رقم هذا هذا نيجست ولا ناس اوكي use disk space only marka kaysad diisaysan nagast wala star marka waxa ku leeyahay below encryption ka below ana star encryption marka asaasay ku dhamaatay halka maxaa ka aragtaa halka maxaa ku soo galay asxaabta qafilkaas soo galay hadda kuma xidhno oo hadda markaan dhalkiisino kuma xidhna laakiin haddaynu computer restart u dirno uu ku xidhnaanaya computer restart u dirno uu ku xidhnaanaya insha Allah taala. marka way fiicanta in lagu xidho si waxyaabo badan uu ka difaacay waana qayb kamid ah security-ga ay ka mid tahay. marka waxaan filayaa inaad ka faa'iideysteen casharkan. hadduu asxaabta casharka ka heshay please asxaabta subscribe channelkan dadka cusub tahay like na saar si share garee wixii comment-yana xagga hoose inoogu soo gudbiya insha Allah taala. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.